jaamacadda carabta ayaa lacag dib loogu dhisay dalka Soomaaliya ugu deeqday dowladda midnimada qaran ee Soomaaliya uu hogaaminayo Shariif Sheekh Axmed. lacagtani oo qiimaheeda gaaraya ilaa iyo 1 milyan oo dollarka Mareykanka lagana bixinayo sanduuqa dhaqaalaha ee jaamacadda carabta. waxa ay jaamacadda carabta ugu qayb qaadanaysaa dib u dhiska hay'adaha dowladda Soomaaliya, sidaasina waxa yiri Ambassador Samir Husni oo ah u qaybsanaha jaamacadda carabta arrimaha Afrika ayaa sheegay in xogayaha guud ee ururka jaamacadda carabta Al-Sayd Amir Musa uu amar ku bixiyay in lacagtaasi la bixiyo si loo taageero buuro maamulka cusub ee ka hana qaada dalka Soomaaliya, kaasi oo hogaaminaya buuro Shariif Sheekh Axmed. Amir Musa waxa uu sheegay in jaamacadda carabta ka qayb galayso kulamo ay ku qaadanayaan wadamada hay'adaha dawliga ah, kaasi oo looga hadlay sidii wax loogu qaban lahaa laguna fiidan lahaa taageero siyaasadeed dowladda cusub ee ka hana qaada dalka Soomaaliya, kaasi oo ka dhici doona maanta buuro magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia. shirkaasi oo ujeedadiisu taasi maamulka cusub ee Soomaaliya loogu suurtagelin lahaa inay wax ka qabtaan dhinacyada u baahan wax ka qabashada iyo sii wadida howlaha dib u heshiisiinta iyo sidoo kale ammaan ku soo dabaalida dalka Soomaaliya. jaamacadda carabta waxay durba hore u soo dhaweysay markii lagu dhawaaqay natiijada madaxweynenimada Shariif Sheekh Axmed. tani waa taageeradii koowaad ee xagga dhaqaalaha ee jaamacadda carabta u fidisay dowladda midnimada qaran uu hogaaminayo Sheekh Shariif Sheekh Axmed. mahad carabi wacali telefishinka Universal Al-Qaahira.